15 qabiil ee bulsho ee ugu go'doonsan dunida. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa 15 qabiil oo ka go'doonsan dunida inteeda kale. Dunida aan ku noolnahay waxay ku faafsan bulshooyin aad u go'doonsan, qaar ku dhuumanaya kaymaha qarada weyn, qaar ku nool jasiirado fog oo aan diyaaradi ka degin, iyo kuwa ku dhex nool barafka iyo saxaraha kulul. mid kasta oo ka mid ah bulshooyinkan waxay astaan u ah adkaysiga bani'aadamka iyo sida uu awood badan yahay dhaqanka ay ka dhaxleen awoowayaashood. aan ku bilowna kaymaha Amazon, halkaas oo qabiilka Majo Birigo ay weli ku nool yihiin nolol reer guuraa ah. qiyaastii 200 oo qof oo ugaarsata ah oo si joogto ah u guura si ay u helaan cunnada iyo ammaanka. halista uga timaada dadka sharci darrada u gala kaynta ayaa ku qasbay inay helaan meel ay ku koobnaadaan. kaynta dhexdeeda waxaad la kulmaysaa qabiilka Alwaax oo ka mid ah bulshooyinka ugu daran ee wajaha khatar dabar go'a. ku dhawaad 350 qof ayaa ku nool jasiiradan oo ku jira bariga Amazon. go'doonkooda adag ayaa ilaaliyay dhaqankooda, laakiin dhul la'aan iyo cadaadis ayaa ka imaanaya dadka shisheeyaha ee waxay halis gelinayaan noloshooda. aan u gudubna badda dhexe ee Pacific, jasiiradda Palmerston ee Cook Islands, meel ay ku nool yihiin kaliya 62 qof. badankooda ayaa ka soo farxamay hal nin oo Ingiriis ah kaasoo halkaa yimid qarnigii 19aad. waxayna ku nool yihiin kalsooni buuxda iyagoo naftooda dhistaan koronto, cunto iyo adeeg walba oo ay u baahan yihiin. dhinaca badda Atlantic waxaa ku taal jasiiradda caanka ah ee Tristan da Cunha, meesha ugu go'doonsan dunida. qiyaastii 250 qof ayaa ku nool jasiiradan, hal tuulo oo yar oo ay ku gaarayaan oo kaliya markab dhowr jeer sanadkii yimaada. nolol adag laakiin la isku xirnaan qoys iyo mid bulsho oo aad u xoogan. jasiiradda Magango ee Kenya iyo Uganda u dhaxaysa waxa ay martigelisaa bulsho yar oo 500 qofood ah, inkastoo ay tiradoodu kororto had iyo jeer. meel aad u cidlo ah oo maanta noqotay tuulo ay ka jiraan guryo, maqaayado, xataa farmashi, laakiin weli waa meel si taxaddar leh u ilaaliyaan cid kasta oo soo booqata. barafka adduunka iyo meelo aadan laga fili karin in dad ku noolaadaan. haddana aan u gudubno waqooyiga dunida ee Dokoto oo ku taala jasiiradda Greenland. waa deegaanka dhulka ugu fog. qiyaastii 450 qof ayaa halkaas ku nool. heerkulkuna inta badan waxa uu gaaraa heer aad u hooseeya. helicopter oo kaliya ayaa mararka qaarkood yimaada, ayaana isku xira dunida inteeda kale. koonfurta fog ee Atlantic, Villa Las Estrellas waa meel dadku ugu nool yihiin si joogto ah jiilaalka. tirada dadka ayaa mararka qaarkood hoos u dhacday ilaa 80 qof dhibaato caafimaad darteed. qof kasta oo halkaas degaya waa inuu horey looga saaraa. hase yeeshee nolol bulsho ayaa ka jirta, dugsiyo, ganacsi iyo nolol qabow oo adag. dhanka Ruushka bari, Oymyakon waa goobta ugu qabow ee dadka si joogto ah u degaan. qiyaastii 900 oo qof ayaa ku nool halkaas. heerkulku marna wuxuu gaaraa ilaa -97 oo nolol aad u adag ahna mid qabow. balse dadku waxay ku xiran yihiin dhulkooda, xoolahooda iyo dabka ay habeen kasta ku kululeystaan. saxaraha, buuraha iyo dhaqamada reer guuraaga. saxaraha Australia, Cooper Bedy waa magaalo lagu yaqaano guryaha dhulka hoostiisa laga dhisay si looga dhuunto kuleylka daran. qiyaastii 2,000 oo qof ayaa halkaas ku nool, intooduna ka shaqeeya qodista dhagaxa qaaliga ah ee loo yaqaano Opal. saxaraha galbeed ee dalka Masar, Siwa Oasis waa bulsho go'doon ah oo taariikh dheer leh, ku nool beeraha timirta iyo saytuunka, waxaana ilaa iyo dhowaan lagu gaari jiray oo kaliya geel ama baabuurta. saxaraha go'doonkaas ayaa ka badbaaday buuqa casriga ah ee ka jira dalkooda intiisa kale. buuraleyda Tibet ee dalka Hindiya, Jangma nomadas waa reer guuraa dhaqda ariga loo yaqaano Jandra, kaasoo laga helo suufka qaaliga ah ee Pashmina. nolol safar oo joogto ah oo ay la qabsadeen hawada sare ee qabowga daran. meelaha aan dadka badankood aadin iyo siraha dabiiciga. jasiiradda Kerguelen, meel cidlo ah oo ku dhow Atlantika, ma jiraan dad asal ahaan u dhashay dhulkan, waxaana kaliya ku jira xarumo yaryar oo cilmi baaris oo Faransiisku leeyahay. jasiirado ay maraakiibta dhif ay mararka qaar booqdaan. dhinaca Socotra waa jasiirad la geedo iyo noolayaal aan dunida kale laga helin. ku dhawaad 60,000 oo qof oo ilaaliya deegaanka oo leh sharciyo adag si ay u lumiyaan astaanta dabiiciga ah ee jasiiradda. ugu dambeynna North Sentinel, dadkan oo degan jasiiradda North Sentinel waa kuwa ugu go'doonsan dunida qarsoon, waxayna si buuxda u diidaan xiriirka dibadda. tiradooduna lama yaqaan. kumanaan sano ayayna ku noolaadaan nolol u gaar ah iyaga oo ilaalinaya xorriyadda iyo dhaqankooda. bulshooyinkan kala duwan, kuwa ku nool barafka, kuwa ku nool kaymaha qarada weyn, kuwa jasiiradaha fog ku xayiran iyo kuwa nolol saxaraha kulul ku nool, waxay muujinayaan hal arrin oo weyn: adkeysiga bani'aadamka iyo quruxda kala duwanaanshiyaha dhaqameed.
se go'doonkan ayaa mararka qaar ah difaac mararka qaarna waa khatar. Isbeddelka cimilada shakhsiyaadka ka faa'iideysta iyo cadaadiska siyaasadeed ayaa halis gelinaya nolol badan oo ka mid ah bulshooyinkan. Ilaalinta deegaanka, dhaqanka iyo madax bannaanida waa lama huraan si bulshooyinkan go'doonsan u sii ahaadaan qayb ka mid ah sheekooyinka dunida. Ku soo biir boggeena daawada muuqaalkan iyo muuqaalka xiga. Kulanti dambe.